السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa janalka Dacwo Tube. Magacayguna waa Zaki Maxamuud. Ku soo dhawaada qisadeena maanta. Haweeneydan waxay la nooleed saygeeda iyo caruurteeda, waxayna ku noolaayeen nolol aad u fiican oo farxad leh. Maalin maalmaha ka mid ah waxa uu yimid nin beeraley ah, kaasoo ay isgaranayaan haweeneyda. waxaana la socotay gabar 7 jir ahayd oo qaadimad ah. Wuxuuna ka codsaday haweeneydii inay la noolaato ayna qaadimad u noqoto. Haweeneydii waa ay ka aqbashay. gabadhii ayaa kaalmeyn jirtay haweeneydii, waxayna soo kici jirtay salaada subax, waxayna haweeneyda la diyaarin jirtay quraacda reerka. intaa kadib labada cunug ay dhaleen reerka ay u kaxeeni jirtay madrasada iyadoo u qaadi jirtay boorsooyinkooda. markii ay soo noqoto waxa ay bilaabi jirtay inay ka shaqeyso guriga ilaa laga gaaro saqda dhexe. saas ay tahay odayga guriga wax asxaan ah uma geli jirin gabadha yar oo mar walba uu garaaci jiray garaac aad u xun ilaa markii dambe uu arageedii yaraaday. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah, gabadhii yareed iyadoo weel laqayso inuu weelka ka dhaco uuna ka jabo. haweeneydii oo aragtay gabadha dhibka haysto waxay u kaxaysay dhakhtarka indhaha, waxayna ugu warantay sida indhaha loogu haayo. dhakhtarkii markii uu baaray wuxuu ku yiri gabadhan arageedii wuu yaraaday, mana arkayso ilaa wax hoosteeda yaala ma ahane, waxna lagama qaban karo ee waxaad samaysaan hala daryeelo gabadhan yar. saas ay tahay odaygii wax naxariis ah uma sameynin gabadhii yareed, wuuna garaaci jiray mar walba. subax subxaha ka mid ah gabadhii yareed ayaa ka baxsatay reerkii garaaci jiray, mana u soo noqon mar dambe. laakiin reerkii wax ahmiyad ah ma siinin raadintii gabadhii yareed. sanado kadib waxaa yimid wiilkoodii oo jaamacad soo dhameeyay, wuxuuna guursaday gabadh. gabadhii markii ay uur qaaday waxay dhashay cunugii koowaad, wuxuuna dhashay isagoo indho la'aan ah. dhaqaatiirtuna waa ay la tacaaleen, laakiin waxba kama aysan qaban. sanad kadib waxa ay qaaday uurkii cunugii labaad. markii ay dhashay cunugii labaad 7 bilood kadib wuxuu noqday mid indhoolo ah. odaygii waa uu xanuunsaday, wuxuuna noqday mid aan waxba kala garanaynin oo isku dardarsamaday, waxaana lagu xiray cilaaj. haweeneydii waxa ay ka fikirtay meesha ay ugu timid musiibadan, waxayna soo xasuusatay gabadhii yareed uu saygeedii mar waliba garaaci jiray. haweeneydii waxa ay raadisay gabadhii yareed in muddo ah, kadib waxa ay heshay gabadhii yareed iyadoo masaajid qaadimad ka ah, waxayna ka codsatay inay u raacdo guriga ayna la noolaato. gabadhii yareed waa ay ka ogolaatay, waxayna u raacday guriga. markii ay guriga timid waxa ay ku noolaatay nolol aad u fiican. haweeneydii ayaa ka codsatay gabadhii yareed inay cafiso Allah subxaanahu wa ta'ala dambi dhaafna u weydiiso. intaa kadib gabadhii yareed waxay bilowday inay mar walba u duceyso Allah subxaanahu wa ta'ala ugu barido inuu musiibada ka dulqaado reerka. halkaas ayay inoogu eg tahay qisadeennii ka hadlaysay dulmiga. haddaba waxaa idinkula dardaarmayaa inaad mar waliba iska ilaalisaan dulmiga haba yaraadee. أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.